السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الكيمبا كنا سودوا هذا برنامج كرتدة بالشدة وعلى بحث هنا كلات كداوتان تي في عالمية ساب تي في مرتدة تضباط كان ومن كميدا دائرة المجال بورعو أسماء أحمد إسماعيل أو ربي كبد باديي دون لغور شيء أما ديارات كويرتي بدل الحديث يجوا كسوك من ذلك يمن كنا سيجدا السودان وحنو نصيبه يالناي إن أنا أسماء معناتها كوريسانو عدد السود عضي dadkii ka badbaaday dadkii ku dhintay ama ku geeriyooday Ilaahay naxariistay iyo waliba dadkii ku dhaawacmay halka wixii ay xog kaayso aan asmaqni ku soo dhaweeyeen barnaamijka kartida bulshada iyo Saab TV aad iyo aad baad u mahadsantihiin hadaatiin bahda Saab isku duuban awalan Ilaahay baa mahad iskale subhanahu wa ta'ala in kulan siiyay ama aynu ku koobtanayno ku kulanay isugu keenay marka xigto saad sheegtay magacaygu waa Asmaqani Axmed Ismaaciil aad iyo aad baan u dhawahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinka mahadcelinayaa martiqaadkaada iyo martiqaadeen TV-ga Saab ama santimaa Asma waxaad nooga warantaa safarka dheer ee aad gasheen ka baxdeen Burco ilaa doonteedu ku haleeshay markaad iman ka timaadeen bal safarkaas sidoo u dhacay iyo sidoo kugu dhashay iyo dadka la haydeen bal nooga xog bixi والله إلهي بمهد سكال سبحانه وتعالى ويقول الشيء صباح وبن يسوون من أنا صاحبنا هي هل كان سوق قوي نحدي سمارة كويسة إسلام مركز صبحي أنا جو يارسن أكل وين تجينا إن أنت عسانو يمي إن أنا عاد سكرنا صاحبنا إن أنت حقولي لو بحنا الحلم مريها أما وحي كادي يارا ديار جرو دو عاد قلت تبع شو كده إن أنت يضو عادو عاد جو دي سه أي هذا إسلام مركي بعض يقول له بعشر لا استعش كده بسوق رعده ديار جرو اسمه وين ديار جرو إلهي بما تسكله بشيء لبعض 17 أنا كان كبحنا شنو يتبين كيدي نلا كوي تبين كيدي لبعض يكون يتبين تون كلا بشيء شنو يتبناد بشيء لبعض شيء يتبين كيدي عنده هل كان بانو كسفرنا أنا قول بدي ذهب لدو كلية إلا ما هل كان إلا ما يجروه نبتقبل كترني جروه حكم أنا رج إن شاء الله وان دافني مركي عم تجني محل لها أن جرو دافنون بوساس مركا كوسي تشدو ودب ودحيسا أما مقالة ودحيسا بوساس إيو جرو ومركا سقر الله ميل كانترول هاسي ولا بقول أوتشولا يسوق ملها وح حافظة متولى ودو بلسوا كريجي إيو عسكرت كسوكان هل كاسيانا لو قبتي مركينا لا يروي دي ذو والمادر ولا لا نهبان هبلا يسكول هنانية نتكلم haddana markaan askarta arkay askar waxaan qaab yar duwan oo aan ku arkay garanaysa gobolka Yuargeyso meelaha soo kale oo dhaadheer oo aad aan u yaranahay ayaa waxay iga soo booday markiiba ilmaadeer bana isla iyadina xitaa walaalaana anna waxaan dhahay ilmaadeer bana okay markaa uu gartay in inta aad u adagtay laakiin anigu aan baqayo markaa wuxuu ku yiri inta ba hadlaysaan maya magaca markaa waxaan ku wax la yiraahdaa Asma bare markaa si guri Asma bare Ismaaciil haa شاق ويا هبتان كوجرع walaalkay baa la soo garacay marka waa inaan si diyaarsanay oo adigu aan iskarayno inaan giyo la soo garacay war habla meedi ka maqayn ha ya ka maqan inaan Ismaaciil leedo anna naxintii bar sheegtay Axmedna marka inaan ku sheegay galteel kuma leegu marka ninkii gaariga iga bajinayo mar balaha adaa baay ragaasan maanta u harday Asma adaa baayday hayay ayuu nin wadaado gaariga saaran oo galli soo digo wuxuu ku war habla yarana garanaya habriirtood bay ku socdaan macna iska dhaaf hablahan okay waxbayaan hadalka ku midaalin ninkii uu soo fasaxay alxamdulillah boosaas istabtana laga horiyay laba habeen baan joognay magafihii Burco nagala soo hadlayay ayaa boosaas noogu yimi markaas lagu hablahan qol xaqana wixii ilaali inaan kibana kaxeeyay adigu habeenkii halkii doontaan la geeyay ilaahay baa maad kale inaan kinaga mutagin waligii wuxuu gabadh uma raacin halkaas oo lama sugnaa qaadigu baan tigirka u jara saas ku tagtaa dekada ama macnaheedu wada adoo halkii labadeeda saan u ahayn baa la keenay laba inaan Hargeysa ka yimi inaan kamidii Nuurdiinka iskuulka Nuurdiin la dhigtaa diyaarada Hargeysa ka soo raacay boosaasu saaka 10kii kaga soo degay magafaana wada isaguna waa tahriibay inaan Muxtaar baa la reeborama waan israacnay 100 Ethiopian aan raacnay baddi bana lagu guray markii labadii habeenimo ahay Soomaali waxaan ku nahay labada hablood iyo wiilka marka laga reebo ragga doonta wada oo iyagu Soomaaliya alxamdulillah iska safarna isla boosaaso baa anagu aan ka dhaqaaqin motor kamid doonti baa qarxay waan iska socon laba habeen iyo maalin baan ku jirnay baddi alxamdulillah Yaman baan tagnay Yaman marka doonta doomaha waa laga qubaa dadka oo waxa ay qabsanaya Yamaniinta
marka ninka doontiisa ka qiimo badan dadka saaranba markuu arko meel fogadoo soo socdo buruusinka ku tuuraya markuu dhulka doonta ku qabsamatana waa laga daadinaya marka isma saddexda Soomaalida waa loo yara gargaaro kun yar baa la dejiyay badda laakiin lagu dhex dejinayo biyo laga ku maraya waad ka baxaysaa ee lugtaad ka qaado meel fog oo hay'adu ka arkin marka lagu dejiyo Itoobiya bay haay marka anaga Soomaali bay noogu yaranayaan qaar aan garanaya waa la isugu jiraa iyagu muhiimadu waa inaad doontooda faraaqtaan markiiba kala jeesataan alxamdulillah inaan Itoobiya ama Soomaali garanaya ayaa gacmaana qabtay aniga inantii kalaba inankiina wuxuu soo dheereen inaan weligood guriga hooyadii ka bixin yar oo nagaba yarna uu ahaa marka waan isla raacnay alxamdulillah waxaan qabatay hay'adii adigu malaha waxaan lugeynay saacadaha badan hay'adii markay qabatayna biyo waxba nala siiyay hay'adii baan lagu xareeyay hay'adu watay hay'adan UN UNDP markii iyadoo waraaqaha waxa ku jaraysan maabenkii baan u hooynay halkii aad muharrib oo dhan baan u yimi waana la kala doorsadas lahayd laakiin mid baan anagu markii hore ku soconay kiina soo diray boosaasana ahaa adigu hay'adda lafteedu iyadoo ay jiwanada lagu jaray magacyada laga bixinayo ayaa waxa hoos cararaya magafeeba la socota ama magafaasa fiican ama halka mar ama sidan mar waana hay'adii dhameed iyadu ku jiraysay warqada aqoonsiga ama ogolaashaha inaad wadanka ku joogto magangaliyo hay'adda ayaa iyaduna magafaa oo waxaan nin midba magafaa lacag siiyo u shaqeynaya wixii waxaan oo yimi waana la qaaday adigu dasta shaaban magafaa gurigiisa ku noolna taraag baa halka laga qaaday 12 subaxnimo halkan ku socono alqarasa waxaan alcaara waxaan la geeyay subaxii dambe salaadii subax alxamdulillah halkaas aan nabad ku tagnay Axmed waxay ugu maqaala markii alqarasa tagteen inay halkaas Soomaalida isku qabsatay wal xogtaana xerada gudeeda ha Soomaalida isku qabsato way dhacaysaa Soomaalida inay wadaagto halkan ay joogaan bay u kibir badan magafa marka gudihiisa ama xeradan iyo magafay turjinta Yemen aad gasho wala kala xoog badan yahay marka hadii jarina masanka ka qabsanaya adigu burcaha u bataan gobolka burcaha ka soo jeeda aad baa meeshan isku dhaxlaynaya qofkii isagu iska ururiyay hablahooda hortaynta badan habluhu ay hablahooda iska dhinac raacaan wada amaan helisa laakiin haddaad marba meel soo dhaxarato marba inamada u tagto adiga dhib kaaga imanaysa laakiin marka hore muhiimadu waa inay haddaad doonayso inaad wadada rabti aad raacdo وين هبلها هذا تكتيات كده حجرته هل كان واحد كل عنك رتوك أنت كنت شوكته حلمات أم ببحثين أسماء أو يمن كتكتينات أيوة بند أنا قوّر هاي بنا لي ديار جروبة ملها كودي يبركي بالله نلقو جرو دوين نلقو جرو هذا الحمد لله نبض بان كوكرناي ونسك شراغناي تصبانو بحنا أنا الحمد لله إلهي وكيشانا حبين كي بدنا كتير صبح waxaan ku fuulayn 140 qof waayo waxaad ku garan kartaa wax in baqar rag baa wata kooxda noocaas Yunus baa wata tiradoodu waa inta kooxda noocaas ilka casaa wata tiradu waa inta Cabdi Fataax baa wata ayaad maqlaysaa moogtaa marka dambe waxaad maqlaysaa total imisay noqdeen isu geyn wala isku darsanaya 140 waagu markuu bariyay alxamdulillah dadkii isku arkay inay nabad qabaan oo de meetintii iyo intii nooleed wixii bay saaran yihiin wada nabad qabaan gobolku markuu soo dhici doono adigu 40 meelaha waxaan noo timid diyaarad 40 galabnimo qorraxdu markay soo jeedo diyaaradan cid la garanayno anagu doon baan saaranahay dad iska dawaqsan baan oo xalay oo dhan ku soo jiray biyaha maantana ku jiray inta badan dadku ay iska wareersan yihiin iska unqaacayeenba diyaaradu sawirayna ka qaadata sawirada diyaaradu way noo soo dhawaada sawirada waan aragnaa abaar shantii bay nagu soo noqota sidii sileeg bay nooga qaada mar walba sawiradan bay soo hubinaysaa baa la oranayaa markii dambe deena waradu waa nagu dhaceen markii 6 ahaydna waa noo timi diyaaradaas 3 jeer bay sawiradan naga qaada isla galabta waa galabta habeenkiina la indoonto abaar 8 habeenimo saacad ban xiran saa markan u shido u eegaya ay bululeed cirka kurdi ma fahmayna bululeedkan waxay u ridisay waxa loo ridayay midna dadkayga Soomaalida meesha saaran adigu markay bululeedkii dhowr jeer riday gantaal bin ku soo riday ilaahay markiisa biyo ku dhaxdhacay anaga waan ka badbaadin markii bay rasaas bilowda والله واحد لو روح مع الدراسات تي مركب بلوضي ديارة لفتي إسوري أيام هبينكينا نوتمي مركب dadku ay isku hayeen diyaaradu ay nahagaytay markii hore saaruq la soo riday markii dambe laakiin iyada rasaasta ka soconaysa markii doontu soconayso mar walba diyaaraduna daba taaganta
saasuu hubkuu soconaya oo gantaalkii ku dhigay gantaalka nagu dhicin waa hadduu gantaalka nagu dhici lahaa doontaa wada go'i lahayd annagana lama wada arkeen waxa weeyaan axmed hadalka ku daadin walaalo rasaasta in badana socoto dadku ha wada qayliyaan naxnu soomaali anaa saacidni anaa masaafir aduu hadallay adeegsanayaan dhawaaqooda aad u xun yahay oo macnaheed marna ilaahay ay baryayaan marna ay leeyihiin dadka noocaasana marba ay dee markaasi iscadaynayaan ay yihiin dad shicib aan iyagu markaasi waxba aan wadin rasaastii marka adigu 2 saacadood nagu waday naga joojiye haddana waa lagu celi adigu meel 12 la gaaray waan la kala saareen waxa dhimashada iyo waxa dhaawaca iyo wax kale ayna laga dahay aniga yar kula hadlay waxaan isla wadnaha kaaga taala habeenkii oo dhan waxaan la wadnaha soo dhiigan igu daadanayay iyo meydkan isaaran iyo dhibkan haysta ayaan moodaya wadnahan aan isla ku daloola inay wax igu yaalaan dadka halkan qaar ka qaynaya waxay leeyihiin la lugtaan oo waxba ma goona oo dadku way salba baqeen inta dhimatay way inta kale adu waxaan hadalku ugu daalinay markii 12 kii ka joogsantay ninkii noo wadayna waa gacan laga gooyo lug laga gooyo adigu dhaawac xun yahay ba kuwii carabta ahaa meydkii bay si saareen soo qof marka meydkiisa saaro xabadu ma soo dhaafayso ama hubku ma soo dhaafay oo meydkan buu ku qaboojismaya anagu laakiin garamayna meyd baa la is saaraayo dadka aan warigood arag meel rasaasi ka dhacday baa meesha shicibka iska yaryar dhalinyarada hadee macnii aan dhahay dad dhalinyaro ah oo ayagu meel dagaal ku dhacay inaan arag marka carabtan way fahmaysaa iyagu maalin walba wada maraa ama waa meelaha iminka dawladaha shisheeye ay rusheeyaano waa meel aad iyagu iminka dhibka u aragtay marka adu waxba ma gaarin saddexdina kale marka doonta ma carabtii waday ba soo carabi dira saar ma waa carabtii noo waday oo afar ayaa kii waday la dilay saddexdii kale hururday ayaa iyagu soo bixi doona marka dambe oo dameydkan is saari doono oo iyagu isbadbaadinaya marka 12 ka rasaasta joogsantay wali aad waxaan uga siinaxaan xasuustaa inaan Ibraahim la dhaho Hargeysa uu kacayo wuxuu yiri war hablaha ka dhex kaca war Mariya Tuura war macni raggan tusaday inaan dad dhib lahayn intaan hadalkiiba wada lagu dhifto soo dhaca inaan kala kacayo iminka isaguna afaa u jooga jimcaala la dhahaa naagi baa ku barortay hablii aan dhahay meesha joogay war jimcaala uu kaca war marada Tuur maradu jimcaalna saa u wadaafiyay isna jimcaalna waa soo dhaca isagoo dhinacaas baqalalay oo maskaxda ay goysay xididada neerfaha way arkayaan qofka kacay iyo dhaqdhaqaaqaaga waa la socdaa marka diyaaradu way helicopter baa way taagan diyaaradu dusheeda taagan marba saas way dhaqdhaqaaqaysaa way aragtaa waxaan sameynayna adu waxa uu naga dhamaato dhiigsan ugu socdo dadka dusheeda hurda dhamaado ama kuwii iga soo horjeeday aad waxaan u sii xasuustaa aan uga naxaa inama horteeda fadhiyo la 15 nana oo reer barco badna maalintii aad baan xanuunsanayay marba waan muqaacay marka inamadaasi waxay walaayeen marba asma iska jiifso macni adigu madabada wareerso kabadani waxaan eegin wixii inaan saayimanka ii soo horfadhido markii xabada joogsatay qof meeshii mu fadhiyay wax badda ku daatay iyo baan noqdeen wax doonta ku soo daatay oo markaas dhintay okay marka haddaan sidoo ka sheekay aad baan macni dareenkaygu isu bedelayaa maadaama aan ahay qof aan goobtii taagnaa waan ka duwanay qof goobtii magaranaysa isagoo warbixin bixinaya marka waxa dhacday markii saacadu joogsantay dadku aad bay u baruurinayeen kuwa dhaawac warbiyana siiya war nafta naga baxday war halkan noo xidha marka ummaddu way isu kacaysay waa lugta loo xidho qof biyo la siiyo sii dhiig baxa aad waxaan u xasuustaa ilmo yaro ilaa 13 jira carafaad baa lagu magacaabi jiray isagoo nafta ka baxayso ayuu doonta saacaga ula dhacay inana dhibta uu ka haystay marka ilmaha yaro adigu aad iyadu way ku sileeday qof walba way ku dhacaysay way ka boodisay maan arag qof aad ku rafaaday isagoo nolosh ku jirta laakiin carafaad waxaan arkaynay carafaad oo naftu ka baxayso oo aad noo sakaraaday ilaahay baa mahad kale inteedii badbaadisay ilaahay uu naga daayay doontii waxaan isku afgarinay Suudaan lagu shubay inaan Yemen ku soo noqono magaalo xidhiidha la yiraahdo caasimad xidhiidha la yiraahdo iyaduna deked la nimaadno oo iyagana ay xootiintu ka taliyaan halkaas aan markii saacadii subax la eedaamay iyadoo la wada ogyahay adduunka wixii hay'ado joogan meesha ay tubayeen qaar baleeyeen waxbaan qaabilsanaa inteedii nabta qabtay markii laga soo guray intii meydkaaba laga geeyay dhaawacyadina dhakhtarka loola cararay waxaan ka mid noqday dadkii markii ay wax noqdeen dhakhtarka loola cararay alxamdulillah waan hadlay iyadoo la iga weydiinayo namadiisa wax noqdeen isaa la idin laayay alxamdulillah kulleedii anigoo markaasi ooyaan hadal badan bixin karaynin waan ka warbixiyay aan yar dul istaago dadka imsa dhintay imsa geeriyooday imsa noola walaalo 145 markaasi aan ku ogeyn fiidkii markaan u baxaynay
waxa dhintay anagu aan qarsanayn haddana dhalinyaradii markaasi hadhay noolayd 45 naga baxay laakiin kuwa xaqiijinay iyagu ka daba tagay meydadka iyo hay'adaha waxbaara ay yahay 7 qof ay noo keeneen meydkoodii marka marba way nagu soo noqonayeen imisa idiga maqan marba dad baan u yeedhinaa dadku magacyada ay bedelayeen oo qof markuu Soomaaliland ka tago ama Soomaaliya wuxuu diiday hadii laga daba yimaado saan xirooyinka loogu qaban marka anigoo kala asma markaan ahay markaan xirada galaha ayada UN-ta waxaan qoranayaa Zainab ay hadhow haday dhimasho timaado Zainab baa tiriirkii neelada Zainab kuma yaqaanaan xawa ama asma lagu garnay marka dadka inta badan meedka mar dambe la ogaaday mar nool ku noolay la ogaaday magacyadana khaldeen baa ciid ka badnay laakiin horeer 45 qof baa naga maqnaa iyaguna 60 qof bay soo saareen 7 qof baa la waayay in meeshii magaceedina la helo muuqoodina la helo ama midkoodii ama Soomaali kaliya ku wada saarnaa doonta mise waxay la saarnaa Ethiopian may walaal waxaan la saarnaa Soomaali kaliya nahay wax Ethiopian lama saarnaa ama waxna taraxaba markaad soo laabateen aad ku soo lagu yiri warbixi maxaad ku warbixisaan alxamdulillah wallahi aniga kale markaan dhakhtarka imi ayaa xoogaa la wareystay imisa haydeen imisa dhimatay wax yar iyadoo BBC markaa ay wareysanaysa marka warbixin badan ma bixin laakiin waxaan sheegay in ma badan iyo habla badan la laayay in xaq darro lagu laayay in dadka la laayay la cadeynayo inuu yahay xulfada Sacuudiga hogaaminayo markaas sidee dadkaasi talaabo sharciye looga qaado maadaama ay dhacay qaladkii ay sameeyeen oo dadkii ay laayeen loo gurmado ummadii dhimatay iyo ummadda dhaawacaba lagana day uu Sacuudiguna ka garbaxo maadaama ummadan isagu wuxuu geystay wax la macni la xisaabtama hadii ummadda ama Soomaalida noqoto ama Soomaaliya noqoto ama Soomaaliya noqoto in la helo qasabada wixii ayaan la yeerto imika waxay ugu maqaalaa in hablihiina meeligi inmadina meeligi la jalo waray markii dambe la bilood marka joogtay markii dambe la idin kaxeeyo leediri Yurub la idin kaxeynaya meel kale oo jeelalaad ad gasheen bal qisadana ugu war wallahi Ahmed waa saad sheegtay anaga waxaan la geeyay meel معين أما هايد أي أم لريتو بيان كقبلسن حدنا يبلاه كليا أما إنما أنت دعوانا صعتها هذا لقى عقوانا ما جيسس كما حقول لها أما ساسو كلا إنما ساسو دعوة حلوسة إن من دلاب لوضع ين كترني أنا قمقيم كا إنما ذون تشيل كعادي كترين أو أي أدوس حريري وراغنا لقى قرية شرمان والمركوها قبريو وإحنا لو رجري هايدا نوع صيدين ديارة هايدا نوع صيدين ديارة يدو هايدا أي أم يهايدا UN يهايدا إيمان يورد نو إيمان ينور بحمنا قبل حنيان يدو دكتوران يد جرنيان وكراو عسلين مال بلدين جينيا أين مركزي دي واحد يدين قبطه أيانا لصور إن مدينة الله بس لقو صور أنا جينا بسنا لقو الرأي تراك دير بنصاق الله وهرجيسة يبرع كلا صنعاء حديدي مركا وحنمي صنعاء مركا نمي أنا قصة أكو كلا صوب حناي هل كانوا كفلين ميلو هايدي أنا كنت نمي هايدا كوعنا أما ميلو وعنا لكانوا أو داو عسيري سنة وضنو وحنا لقي ميل إن تواسات كلا دا وأنتي قرنس باسابور هذي حلو سمي أما دتك لو قبت باسابور كخلط كلا وحرا وميل آد كود كوستي دل ميلو هذا مركا قاريدا اللي لقيو البابدون بنا لو حرا قل ليري مركا أنت يدي دي سعون كريسير أساس مركا القوة بيد ويوضح حراضي أنت داوعنا لك بالغيتك marka subaxii bay yagina loo saxreeyay xagan biya ka cabnaa baan miri anagoo social media iminka aad ka heli doonto anagoo ka hadlayna oo u baaqayna madaxweynayaasha marka wadanka haysta online biyo meeran ka cabno ma haysano Suuriya ka cabana lagu biya marka Soomaaliland waxa haystay Axmed Silaayo Soomaaliyana farmaajo marka aniga laftayda la hadlay madaxweyne farmaajo oo jeelka dhexdiisa wariyaashu ugu yimaadeen aniga inaan macallin lugaan marka labada saa hadalay oo sheegnay markaasi in safiirka wadanka Soomaaliya oo fadhiya Yemen Axmed Suudani oo laga bedelay markaasi marka wax uu qaban waayay in isaga laftiisa inda wax laga qabto maadaama aanu isagu warba ka ahayn wadankiina ma soo gali karaan وحوتين بعيسة الصومالية مسوا قري كرتو هذا عيد مصادر كرونو ما يماذا أنا ما وراه له وحنا قبنا نبكي وين بناسته تولد الصومال لأن زيادة عفت بوما مصادر سنة ما دام أنا نوركين بعد شمال لأنه مريسي الصوماليين بدأت كويدر سنة هذا لك وده هذا الشيء مركز جكتو يدون بقابل سنة من الله الله أحيانا هذا الكود لنا هالك السرعي وحنا قبني ولي نبرو إن هبلا درعي هذا غير حساره إن تذكر الله يو إن ما ذكرتوين لجو قبصده إن لبدي بلود بدجال يدل يدق لجو هي تتكاسي معلوم والبنان ميديا كهذا الله الحمد لله هوس أنت يوصل قريان ديكو مريها جانا سعادي حرام أي سوق قريان إن كمرد يوحى ألعاب بنا لو سويديا موقت عنتوين يوحى
suuqa looga keeno marka way soo galaan dadkan baan wax sunahay marka alaabooyin wax baan u sidnaa halka ka eega la dhaca qaarna waa loo faraxleen dadkan lagu go'aaniyo dadkan baan waxnaha marka lacag ay waxaan soo urno waxaan u geeninaa adigu waxay ku soo galaan marba kaartida ay ku soo gali karaan wada Soomaaliya markay soo galaan xidhan hooyo Mariya ka hadlo bal u sheegtay dhibka haysataan dawladda Soomaaliya ama dawladda Somaliland oreedin kasto dawladda Soomaaliya in la hadlayay on tir Somaliland cidiba la hadlayni waxbeen hadal ku daalinay safiirkii oo laga bedelay safiir Soomaaliya waxa soo magacawday Axmed marka dhawaaqeeyay codsiga kadib baa la bedelay kadib baa la bedelay Axmed Suunaan xilka waa laga qaaday in waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa Cabdullaahi Shuuriye oo isagoo markaas xilka loo soo magacaabay isagana la soo hadlay toos taleefanka qadkan oo la soo xiriiray diyaar garooba isbuuc gudihii markab iyo xolbaan idin diyaariyay wadankiina ku noqotaa waa tahay intaynaan wadanka ku soo noqon dadkan ay dhibaya waa Yamani marka kuwa xoutiyiintii ma soo xoutiyiintii dadkan marka xoutiyiintii Soomaalida isma tusi kareen Soomaalida madaxda ala isma tusi karo oo Soomaaliya waxay la socotaa adan bay la socotaa iyo kuwa maxaafidka dawladda maxaafidka kuwa noo macaaradkii marka ma soo gali karaan iyagu laakiin way hay'aday soo diri karaan wax baa la sameyn karaa adigu dadkan waxa caawimaada dawladaha ka soo gaadhay Soomaaliya ma jirin cid u ballan qaadaysay in dhaqaatiir la geeyo ama hay'ado wax uga qortayna ma jirin saan jeelka ugu jirnaa dhibka ay dagaalka u qabnay mustafiirkaasina la soo hadlo wili intii horeba sanadteed 7 cisho isuga 7 cisho gudaheed buu soo dhameeyay tabtiba halkii baa gaariyana laga gar cadan baana lagu keenay cadan markii la keenay dadkii dhaawacay waxay go'aan ku wada jirnaa hay'ad waxna la keenay meel adigu ay hay'ad leedahay oo la doon inta caawa lagu xareeyo in dees waxa markabka laga saaro marka dadka horeba oo galwaa maadaama 4 bilood jeel ku soo jireen dhaawacna ay in dadku weydiiyeen meesha galaan rasaas baa dadka dabada loo qabto qasab baa lagu xareeyay in yaacday oo la dhowr ilaatan way ka yaacday intii kalena way gashalkii subaxii safiirka aan weyn safiirkii baa qof walba arkiisa ku salaamay halkiisa ku raali galiyay maadaama uu waxba u awoodi karin kalgacayl inuu tuso oo qalbiga u dhiso oo markabka wanaag ku saaro ayuu damca safiirkii la subaxii uu nala joogay la duurkii intuu markabka naga saaray markabku nala fadhiyay sidoo uu nagu soo ambabixiyay dawladdan Somaliland waa dawladdeennii inagu aad baynu jecelahay dhibkood markuu dhacay ilaa intii dambe horta waxaan aad uga xumaanay waxayna loo tacsiyedeyn oo waxay ahayd inay dawladda Somaliland loo tacsiyedeeyo oo la raayo Ilaahay u naxariisto markii dambe in la soo dhaweeyay oo aadna looga horkaco maadaama ay dad Somaliland oo aad u dhaawacana oo waliba gacan shisheeyeen wax nagu dhiftay ama dad shisheeyeen laayeen okay waan nimi Ilaahay baa maad kale barbaran ka soo degnay بربر مركز نكسر دقني وحوستير أما مدي عسمان مرك ومدي ده أدو بربراني مي هايد مال الله هنا الوحرة الله بعشان كترني وحدة كيسي هجاتي يو وحدة كي حجري هاتن أنت راو عكلية أنت كلا حوق ما بهنا أنت راو عهيد ما دام ودن كنت بسون غير ما دام قعن شيء دي شيء حتى وحية اللي حسبت مي يجي وإحنا يدور بسوا وحق قرطي ويري معني أنا قاعد كاسي نوش نوجه أنا هاي هذا اللبرين أنا وحكي الله قبل ما يجري سيدي بانك صباحنا سيدي بقى قبل الذي كرتكنا مركز وساردي يا أخي ما بدي أعلمها قبل سنين وبريجا ساعة هالشيء وما تحتكها مين سرق وسارد ما نقارك حتى عد كساعتها كمان مرق مركي وتجين تدكوا ومبوري ساعة على الشري وحافر قفر ربع عابل الشيء دي مركي لو قدرنا عصا يمن لو قول لي مد هذا بدنا سؤال أنا محاك قبتين سمحاك قبنا مداس wuxuu buuri umada Soomaaliland oo la sheegay ma jirto afar qof oo rabraca ba jooga afarta qof oo rabraca ayuu kaga gaabsaday hadalkii wax alla wuxuu umadii soo qabtay iyo wax alla wuxuu umadii uu ka yiri ma jiro afar qof baad haydan rabraca reer Soomaaliland raahim se waxaan ahayn umada inta u badan waxay Soomaaliland adigu umadan konton qof gaareen baa hayd xaqaha umada arkaysa laba jibaan intaas u badan waxay Soomaaliland marka ma aragna wax gargaar oo umadii Soomaaliland dawladda Axmed Silaaye ka socotay markaasi ma arag markii ay kadib aan nimi kadib wax noo yeeray ama waxna la hadlay ma jirin tii barakacayaasha iyadu qaabilsan waxyaabaha dabada hay'adda UN ayaa iyadu ayaamo lacag siisay dadkii wax siraac iyo wax dhaqtara iyo umadu u baahnay maadaama umadu qaar indhala iyo qaar dhaawac ay leeyihiin kadib anaga dib u qabanay social media anagoo ka hadlayna bulshada iyo dawladda lehna umada wax u qabta inta dhaawaca imsa dhaawaca markii aad barbar ka soo degteen dalka timaadeen hal wiil oo la go'aan baan naga haray
25 qof ee dhaawac ah intii kale way yimaadeen hadday tahay laba qof oo lugala hadday tahay dhalaan hadday tahay gacmo la'aan hadday tahay adigu aad inta naafo badan ayaa maraysay hay-adii ma is aragteen hay-adan dib u dejinta aan raahe qaxoontiga alxamdulilah wallaahi markaanu ka hadalnay Burco lafteeda waxaanu tagnay isla week kadib hargeysan isla barti ku qabanay haddana anagoo ka hadlayna maanta inaynu Burco ka nimiyo Hargeysa joogno marayaana dadkii naafadaha qaar ka mid kuwii kalena ay baqdin ay ka qabanna waxba loo qabanaynin wadanka gudihiisa uu joogaa hay'adda lafteed ma tagnay markii social media ciidiyo ka jawaab weyday Cabdikariin laftiisan 7 cisho ku sii noqnoqonay maalintii dambe soo Cabdikariin noo istaag waayay baynamada gudoomiye Cabdikariin Axmed Xanif bay kidinka wasaaraddiisa amaanda xafiiskiisa ku qabteen inama kamid ah TV-ga saab laftiisa iyo anagoo soconayna maalin walba oo ku soo noqonayna la hadal dadkii dhaawacay hay'adda noocaasaan ka soconaa intii isu ka yara taagay buu yiri xafiiska galo warbixinada iska qora xafiisyadii baan tagnay hoose warbixinadii baan iska qornay iyagii baan maawiliyay adigu iska sii noqdo iska soo noqday hay'addan waxaan loo diray UN hay'adii baan u tagnay waana baadhay dadka waxay tirahaa inantan way dhalaa dibadda loo qaadaya inantan waa sidan kale iyadana dibadda u baahantay inan biro ku jiraan ilaanka oo muddadii laga saar lahaa ay ka badatay marka adigu markii ayaan sidii nagu wadayna dadkina ay Hargeysa joogaan oo qarash ku socdo oo gaariga la sii qaadayo inta yahay oo inanta lug tagal go'an maalin walba de gaari la saarayo teendhaala la qabanayo dadku de kala meel joogaan oo maalin walba qarash ku socdo cid wuxuu qabanaysana aanay arkaynin way ka soo haleeleen Burco iska yimaadeen gudoomiyahan Cabdikariin Axmed Xanif markii aad wada kulantay waa hadasheen ballan qaadidiisa ma wax ka fulin ma jiraan Cabdikariin ballan isagoo wada maraya inuu isu ka taageerto marka xafiiskiisa ka baxay anagoo inta soo cisho ku sii noqonayna wadagto gudoomiyaasha toos looguma galo meelaha soo soo marmaraysa oo xafiisyada hore wax ka soo qoranaysa arjiyo lagu soo gudbinaya kuwii uu wax ka soo arjiyada ka soo qoto bal warbixinadiina la soo gudbiyo kuwii ba adigu dhowr cisho ilaa adigu aan bil ku qiyaasayo dhowr cisho bayaan oranay ay maalin walba nasii celinay dhakhtarka weyn maantana tan la soo saara iskiin maantana tan kale hal celiyo iyaga dadka $200 dib ugu baxay maalin walba faamiliyadii wuxuu noo soo diray wuxuu noo soo ururiya hadana soo cadeeya maantana kuwan adigu de iska meermeerun alxamdulillah markii ay dadkani arkeen inaan macni social media waxba u qabanay dawladina aanay waxba qabanayn in ilaahay iska wakiishadaano macni niyad jab kala ku timi maadaama shisheeye wax ku sameeyay maadaama wadankoodii joogaan maadaama kuwa iyaga abwaana ma arag abwaana wuxuu doodo ka hadla dhibkooda maanta hadii wax yar dhacaan waxa jiray abwaanadeenu way qayliyaan ka kacay markaaba maasooyin baa lagu cabiraa fanaaniintu ay ku cabiraan anagu ma arag dadkii inta leekay wada umada Soomaaliland ahayda cid wuxuu qabatay abwaanadu way ka gaabsadeen fanaaniintu way ka gaabsadeen madaxdii wadanku ka gaabsadeen siyaasiyiintu way ka gaabsadeen hadii xuqaaladii iyo wadaadadii noqdaan xitaa ama dhaqamadii odayaashii dhaqamada cid dadka wax hadlaysa ma arag asmaay markii aad dalka timaadeen dadkiina kala caafimaadka qabina dalka kala gasheen xog maxaa rasmi leeyahay dawladdaas bay weerartay hay'adaha sirdoonka waxa in badan walacday waxa la yiraahdo Sacuudiga waa taasi waa shakila inuu Sacuudigu ahaa waa ciidamada horta markii hore Sacuudiga gaabiyo waxaana fadhistaan meel baabanda la yiraahdo oo meelaha ay isugu yimaadaan biyo adduunka hadii jeer ama biyo casmeesha la yiraahdo ay fadhiyaan ciidankan ayagu wataan iyagu ma fadhistay isagaana hogaaminaya Sacuudiga hubkan laftiisa isagaa la walacday haddana markii la weydiiyay sarkaal kamid ah saraakiisha ee Sacuudiga wuxuu kaga jawaabay anaga maaha laakiin anagu cadaan in iyaga yihiin xuutiyiina ma moodayn gacantu baa naga dhacdaan oran karaade oo aan bay dadkan u leeynayeen ilaa haatan cid la xisaabtantay haday ta farmaajo noqoto iyo haday ta Soomaaliya noqoto mid la xisaabtantay qof Soomaaliya ama qof siyaasi ama siyaasiyiinta caalamka jooga ama abwaanada aadka waxooda loo dhageysto iyagu faafiya ama fanaaniin ama cid u kacday dadkaasi idinkuna social media waa nala arkaysaan oo social media batiin way hay'adaha xuquuqlisaanka kuwa masiibooyinka kuwa barakacayaasha oo Cabdikariin ugu horeeyo anagu hay'ad aan arko oo cabashadii aan ka jawaabnay Hargeysa ugu tagnay Burco ugu tagnay aan hadalnay ka jawaabay man warag markan su'aal shakhsi ah weydiyo asma maxay qabatay markii ay soo taaribtay soo waayay aragtay dhaawac
iyo dhimashaba ay kasoo dhex kacday jeelal soo gashay rafaad soo martay ee dalkeedii hooyo ku soo noqotay maxay qabataa alxamdulillah wallahi horta wax loo dhigaaban jirin dalka dhulka hooyo maadaama badda biyaha markaad soo gasho ayuu la markaagu caadi u dhacaya saas la markiiba garanaysaa wadankii soo gashay alxamdulillah horta waxa farxadii ah isla markii barbaraan saa u nimaba diyaaraddu bilaash bay ahayd ummaddu waxa la doonayay barta ka baxaan diyaaradaha goostaan oo ay markaa dawladda Soomaaliya toos isugu shubaan ummaduna Soomaaliland miran bay ahayd muqdisho dhowr ilaa 10 qof waxaan gaadhin baan nagtigi ummaddu markay ciideeda aragtay qof walba qosan intuu ku dhuftay buuri man halkan dhaafa qof walba wuxuu yiri waraan u burcana ama hargeysana ama berberaana laas caamad baa ugu kooniyay gaariyaal iska wada raacay mar alla markaan wadankeena midna alxamdulillah waxaan aragnay dib maanta baan wadankaaga hooyo hadii wax ugu dhacaan dadkiina ku qabanayaan shalayba dadka dhintay cid xitaa aasta ayaa la waayay meydku laba bilood meyd dadka dhinacooda yaalo talaagada ku jira alxamdulillah wallahi markaan dalka hooyay ma aad baan u farxay isla markii waxay gashay dhiirigelin ah inaan anigu laftaydaas maahan iska shaqaysto wadankayga ka dhex shaqaysto aan markaa hadaan business tahay iyo haday ka shaqooyin kala tahay labadaba aan qabto alxamdulillah intaan dhahan wadankayga iska joogo maadaama arkay ku walaalada wax noqday in cidna maanta aan waxba u qaban karaynin waa wax aad loo xamdinaqa ku dhintayna waxaan leeyahay mar walba Ilaahay ha u naxariisto hooyooyinkana waxaan leeyahay samriye iimaan Allah ka siiyo waan jeclaa hooyo in macni ubadkaaga dhintay dadkii laayay lagaaga siiyo magdhow balse waan waayay cid ila qabata ama ila hadasha ama ila dhinac cararta farkaliina waxa foolma dhaqday Soomaalidu kuma maada hadan hel lahadan yaradeedii xitaa aniga markaas iyo waan waxba qabin waan isku dugnaan lahayn waxbaan dadkii haatan dadkii aan wuxuu u soo qabano aan dawladda runta tusno aan shacabka kicino aan ummadda baraarujino laakiin waan waayay cid ila kacdo qof walba xukun social media iga dhaaf anu TV ma tagayo wax kale ka amsiin muraayad ay aragtidooda ama marka halka laga arko in laga caayo xitaa hadii lagu caayo maxaa lagu caayo maxaad samaysay baa taala marka kale imanka anigu waan shaqeeyaa social media laftiisa imanka ku jira hadii asma lagu yiraahdo imanka tahriib oo aynu niraan bal inaba asma israan tahriib ka waran arinta wallahi tii asmi xitaa ay kugu la talmisatay waa dhibka ka soo martay aragtida cuntada lagu waashuuray wax kale iska daayo maalmaha buuqdaan saddex shay laga bajaraya Soomaaliya kibirka ka tanbata la oranayaa saddex shay aan cunto la siin saddex habeen saddexda maalmood ka soo fadhiya hadan cunto qofka aan qaadi maayo waa garanayaan carabtiina Soomaaliya kibir badayeen marka intaas kaliya baanad ka soo kabanay ama adigoo dib kugu dhaco hanfigaas badda ku leefo badda dhinaceeda ku nooshahay hadii jeer badda dhinaceeda laga dhisaa buushashka dadku ku xaraadaan marka wallahi ma fiicna adoo halkan joogo quruxda weego leedaas kugu dhacay caafimaadka haysta inaad wadada dheer marto anigu dadka waan kala mar walba waan kala talinaha in aanay marin way anigu waan diidi jiray marka la igala taliyo dadka Yurub jooga ay gurahan ha soo marin waxaan baan fili jiray man maxad idinku haysan amsa aniga ay diidaysan wallahi waan soo maray laakiin qofka qisada dhabti ku dhacdo kuma noqonayo kuma dhaco in halkii maro marka wallahi aad baan uga waranaya bilaadanka cidayna isku tahriibin ka aan xitaa shaqo hayni guriyaha inantana guriyaha ay masaxda u dhaanta inankana gaariyadu meedha u dhaama in hebel leeyahay intu gaariyada meedha waxa yar ku helo gurigoodu isaga aaday aad wallahi wadankan laga baxo ma qurux badnaba taas waxay ahayd asba oo toddobaadkan martiino ahayd waxaanu ku suganahay waa hoteelka cusub ee Baaburayaan waa duubidii iyo habeyntii iyo isku dubaradkii bahda Saab TV ee gobolka Togdheer waxa idin socodsiinayay gabahaan barnaamijka anigoo ah Axmed Xiis Cabdi Ducaysan intaynu barnaamijka mid lamid ah hawada mar labaad ku kulmayno sidaas iyo amaan Allah wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida